tani waa sheekada Jawaahir Roble oo aynu tixraaci doono sheekadeeda Muqdisho ilaa iyo London iyo higsigeeda heerka ugu sareeya garsoorka kubadda cagta UK inay tahay Muslim Soomaali ah oo markii ugu horeysay gaaray heerkan warbixin iyo sheeko tixraac leh oo xiiso leh ayaan idinkaga haynaa. Jawaahir waa gabadhii ugu horeysay ee Muslim ah ee garsoore ka noqotay UK waxayna sheegtay inay higsanayso inay dhexdhexaadiso heerka ugu sareeya kubadda cagta Ingiriiska waxayna haweenka kale ku dhiirigelisay inay soo raacaan wadada ay hayso. Jawaahir waxay jirtay 10 sano oo kaliya markii ay iyada iyo qoyskeedaba magagalyo doon ka noqdeen London kadib markii ay ka soo carareen dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya. Jawaahir oo ku nooleed meel aan sidaa uga fogeyn garoonka kubadda cagta ee Wembley iyo ciyaaristii kubadda cagta ee dugsiga hoose ayaa ahayd tallaabadii ugu horeysay ee safarkeeda garsooranimo. Waraysi ay horay u siisay BBC Sport ayay kaga hadashay barashada luqadda Ingiriiska sida ay u maareyso takoorka iyo yoolalka shaqadeeda. Waxa ay tiri ereyada Ingiriisiga si dabiici ah ay ugu soo bixeen afkayga waxaan isweydiiyay qofka sidaan ugu hadlaya afka Ingiriisiga ma adiga. Waxa ay sheegtay inay ku riyoon jirtay inay England ku matasho kubadda cagta balse waalidkeed ay ku dhiirigeliyeen inay sii wadato xirfadaheeda caadiga ah. Waxa aan doonayay inaan u ciyaaro England laakiin waalidkay waxa ay moodayeen inaysan weligeed taadhici doonin ayay tiri. Waxay doonayeen inaan wax barto aan helo shaqo caadi ah sida hablaha kale. Jacaylkeeda kubadda cagta waxa uu ka soo bilowday gurigeedii Muqdisho markii ay la ciyaaraysay carruurtii ay xaafadda wada degnaayeen iskuulka ahaayeen iyada oo magaalada xilligaas ay ka socdeen dagaalo xooggan oo u dhaxeeya maleeshiya beeleedyo iska soo horjeeda. Sanadkii 2014 iyadoo 19 sano jir waxa ay si dhab ah ugu duubatay inay dhiirigeliso gabdhaha Muslimiinta ah ee kubadda cagta dheela. 2013 waxa ay heshay lacag gunno ah taasi oo u sahashay inay ku biirto tartanka kubadda cagta. sanadkii 2017 waxay ku guuleysatay mid ka mid ah 12 abaalmarin ee loo yaqaanay Respect Awards. 2014 Jawaahir oo markaas 19 sano jir noqotay ayaa qortay waxaan ku riyooday in walaalahayga gabdhaha Muslimiinta ah maalin maalmaha ka mid ah ay si farxad leh u ciyaaraan kubadda cagta. Ujeedadaydu waa inaan gabdhaha Muslimiinta ah ka qayb geliyo ciyaaraha kubadda cagta laga bilaabo da'da 8 ilaa 15. Ujeedadaydu guud waa inaan kor u qaado kubadda cagta oo ah xirfad lagu howlgeliyo gabdhaha da'da yar kadibna aan socodsiiyo aqoon isweydaarsiyo caawiyo horumarinta xirfadaha dhismaha kooxda kor u qaadida kalsoonida iyo sidoo kale kor u qaadida qaab nololeed caafimaad leh. Waxaa 2019 loo aqoonsaday mid ka mid ah 100 haween ee ugu saameynta badan oo ah abaalmarin sanadle ah oo ay bixiso BBC-da.